halkani waa qubnaha TV ku soo dhawaada barnaamij wareedkana xilligan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah xogta safarka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Eritrea Afwerki madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ku xiray shuruud adag qodobadaasi sidoo kale waxaan idin wadaagi doonaa xogii ugu dambeeyay shuruudda uu ku xiray madaxweynaha dalka Eritrea iyo safarka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ee maanta uu ku tagay dalka Itoobiya qodobada kalena waxaa kamid ah haduu Rabi qadaro dowladda Qatar oo qorsheynaysa inay joojiso dagaalka ka dhanka al-shabaab ee xilligan ka soconaya gobolka kamid ah Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiin Soomaaliyeed oo arintani ka aragtay dibtay qoraalada ay ku baayeen baraha bulshada iyo codadkooda saaxiib yaal soo gudbin doona qodobada kalena haduu Rabi qadaro waxaa kamid noqonaya xildhibaan macallin uu sidoo kale xubno ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo mas'uuliyiin kale oo maanta lagu weeraray meel u dhow degmada Buulaburdo ee gobolka Hiiraan haddaba cidda weerartay al-shabaab mise qaab qabiil ayaa jiro xogii ugu dambeeyay weerarkaasi iyo xogaha laga helayo ayaan saaxiib yaal soo gudbin doona qodobadaas iyo kuwa kalena barnaamij wareedkana xilligan aad ku daawan doontaan balse aan ku bilaabo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka degay garoonka diyaaradaha sidoo kale dalka Itoobiya ee magaalada Addis isagoo halkaasi ku soo dhaweeyay wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed xogaha laga helo safarka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ah in madaxweynaha dalka Eritrea Afwerki uu madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud shuruud adag ku xiray sidoo kalena ka dalbaday in uu dalka Itoobiya gaaro sidoo kalena qorshaha lagu soo celinayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu tababarayo dalka Eritrea uu dhexdhexaadinayo madaxweynaha sidoo kale wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed xogaha laga helayo fila Soomaaliya ayaa tibaaxaya in madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dalban doono wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed in uu dhexdhexaadiyo arinta ciidamada lagu tababarayo dalka Eritrea oo maalmihii la soo dhaafay walaac laga muujinayo sidoo kalena ee lagu xiray in ay lacag bixiso dowladda Soomaaliya sidoo kale la sheegay in lacag malaayiin ah ee la bixin doono helayso qubnaha TV-na saaxiib yaal waxay tibaaxayaan in madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud safarka ku tagay dalka Itoobiya uu qayb ka yahay taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad oo la rumaysan yahay inuu si weyn uga soo horjeeday taliyaha hay'adani ugu horeeyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wararkii ugu dambeeyay laga helayo dhalinta lagu tababarayo dalka Eritrea saaxiib yaal waxay tibaaxayaan in siyaasiyiin uu ka mid yahay Fahad Yaasiin sidoo kale madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay shirtaa ku sameeyeen waa sidii hore aan ku soo gudbinay in dhalintani dib loogu soo celiyo dalka Soomaaliya xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo cadaadis kala kulmayay waalidiinta dhalintani ay ka dalbanayeen in wiilashooda uu dib ugu soo celiyo magaalooyinkii ay ka deganaayeen Soomaaliya madaxweynaha wuxuu qorsheenayaa in ciidamadani ay qayb ka noqdaan howlgallada ka soconaya guud ahaan Soomaaliya sidoo kalena si gaar ah waxay uga soconayaan gobolada Hiiraan Galgaduud iyo gobollo kamid ah Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha ayaa wasaaraha Itoobiya waxa uu la wadaagay fariin ah in ciidamadani uu doonayo in ay qayb ka noqdaan dagaalada lagu jiro xilligan al-shabaab uu sheegay in looga faa'iideysan karo sidoo kalena xilligan ay tahay xilliga ugu muhiimsan ee al-shabaab la dagaalami karo dadku deegaankuna ay soo jeedaan waa sida uu ka dhaadhiciyay markaan haddii aanu eegno dowladda Qatar ayaa waxa ay bilowday qorshe ay ku joojinayso dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya gobolka kamid ah Soomaaliya dowladda Qatar oo la rumaysay inay si weyn u taageersanay dowladii hore ee Soomaaliya ee uu hogaaminayo Maxamed Farmaajo iyo sidoo kalena cilaaqaad weyn la leedahay siyaasiga Fahad Yaasiin oo mar soo noqday taliyada nabad sugidda sirdoonka qaranka marna ahaa la taliyaha amniga madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale la rumaysan yahay in dowladani Qatar ay doonayso in xilligan la joojiyo dagaalada lagu jiro al-shabaab siyaasiyiin waaweyn oo ka mid yahay madaxweynihii hore Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa ka aragtay dibta waliba qoraal ku soo daabacay bartiisa uu ku leeyahay barta xiriirka ee Facebook isagoo dhaleecin u jeediyay sidoo kalena sheegay in ay xilligan qayb ka noqonayaan dadka gumaadka loogu geysanayo gobolada Hiiraan iyo sidoo kale gobolada kale uu ka soconayo dagaalada ka dhanka al-shabaab hadalkiisii ayaa wuxuu ahaa war soo gaaray ayaa sheegaya inay dowladda Qatar ahayd beerlaxawsi la dhaxwareegiso qaar kamid ah maamulada iyo siyaasiyiinta Soomaalida iyadoo doonaysa in la joojiyo dagaalka ka dhanka al-shabaab oo wada hadal la galo xaqiiqda waxay tahay Qatar waxay doonaysaa in lacag ku bixiso sidii cadaadis loo saari lahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si uu ogolaado inuu wada hadal la furo sidoo uu sheegay al-shabaab sidaas oo ay tahay haddana Qatar daacad kama heshiiska ee waxay rabtaa inay al-shabaab siday u dhan yihiin ka soo mid noqdaan maamulka dawliga iyo sidoo kale ciidamada kadibna ay la wareegaan talada dalka Qatar ma waxay la tahay in la moog yahay dibindaabyadii ay ku sameysay dowladii rayidka ee Afghanistan oo ay shirarka sidoo kalena ay ka qayb galeen ayuu leeyahay
qoraalka waa uu si dheeraa uu madaxweynihii hore Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble waxa uu ku soo gabagabeeyay Qatar ma waxay moogtahay inay dunida sidii hore isaga dhowdahay Soomaaliduna tahay dad la socda dunida casriga loona shidi karin filim dunida hore looga daawaday waa sidoo hadalka u dhigay qoraalkaasi waxa bartiisa Facebook ku soo daabacay madaxweynihii hore Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo si weyn u taageerayay howlgallada ka soconayay maalmihii la soo dhaafay gobolka Hiiraan waa gobolka uu ka soo jeedo mas'uulkani markaan hadiyanu eegno xubno uu ka mid yahay xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallim oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya ayaa waxa uu maanta ka degay magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan xildhibaan Macallim iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle ayaa waxa ay kormeer ku tageen deegaano hoostaga degmada Buulaburde iyadoo wararku qaar ay tibaaxayaan lana soo warinayo in xildhibaan Macallim iyo mas'uuliyiinta la socdeenba wadada loo galay sidoo kalena maleeshiyaadka wadada u galay la rumaysan yahay in ay ka mid yihiin dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena ila kale xogaalana waxay xaqiijinayaan in ay jiraan aanooyin qabiil oo dhex yaala beelo wadadaga degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan dadku qaarna ay sheegayaan in al-shabaab deegaanadaasi deegaano u dhowba aysan joogin dadka wadada u galay xildhibaan Macallim iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Hirshabelle ay yihiin dad u abaabulan qaab qabiil waa sida hadalka loo dhigay xubno ay la xiriirtay qubnaha TV-na saaxiibayaal waxay noo sheegeen in xilligan ay tahay xilligii dabcan la dagaalami lahaa al-shabaab sidoo kalena dhabarjab ay ku noqonayso in mas'uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliya dhabarjibin lagu sameeyo sidoo kalena waxa ay sheegayaan dadkani xog ogaalka in ay ka dambeeyaan siyaasiyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle oo ka soo horjeeda imaatinka xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallim iyo sidoo kale siyaasiyiinta maamulka Hirshabelle oo deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka Hiiraan guud ahaan wararkii aad kala socoteen qubnaha TV-na xilligan wanaginta